Drip irrigation waa nooc ka mid ah noocyada loo isticmaalo waraabinta beeraha. Waxyaabo badan ayuu uga fiican yahay noocyada kale oo la isticmaalo, khaas ahaan wadankeena oo biyuhu ku yar yihiin. Laga yaabo inay ciidii cusbo leedahay ama biyuhu cusbo leeyihiin. Sidoo kale ciidaha bacaadka ah oo biyaha si fiican u ceshan karin aad ayaa loogu isticmaali karaa. Marka dalagyo qaali ah oo qiimo fiican jooga haddii la soo saaro nidaamkan aad ayuu ugu fiican yahay. Inkastoo dhibaatadiisu ay tahay inuu qaali yahay oo lacag badan ka soo bixinaysid. waxyaabahaas oo dhan oo ku saabsan drip irrigation insha Allah video-ga ayaan uga sheekaynaynaa. daawasho wacan. السلام عليكم كسر هذا فيديو كله يدين ديار سفام صوماليا وأنا قلت لقلنا إني كفاية استنتج كصوماليات مقعي على باشي فضلا هدي أكنال كان كعصبت هاي سبسكرايب ده بالكنا تابو ونوجد بي ورا لها كلا صوماليات سيدات بدن وجارته وجنا فايدة استن وما سنتين waraabka beeraha afar nooc ayaa loo qaybiyaa sidaan hore u sheegnay. Mid waa sprinkler irrigation oo noocyo badan leh, mid waa drip irrigation, mid waa gacantaada oo isticmaasho oo qaabab badan leh, mid waa service irrigation. Service irrigation video ayaan ka sameynay hore, waxaan rajeynayaa inaad daawatay. laakiin sida aad ciwaanka ka aragtay videogan waxaan uga sheekaynaynaa ama aan uga hadlaynaa drip irrigation. insha Allah markale ayaa video ka sameynaynaa sida aad u dhisi lahayd drip irrigation aad adiga naftaada dhisatay oo qaab raqiis ah u dhisanaysid adoo isticmaalaysid qalab wadanka yaala. waxaan rajeynayaa taas inaan mar soo socoto insha Allah sameyn doono video noocaasa. waxyaabo badan ayaan kusoo qaadan doonaa videogan. hordhaca kadib waxaan ka hadli doonaa dalagyada ku habboon, dalcadaha ku habboon, ciidda ku habboon, biyaha waraabka ee ku habboon, qalabka iyo nidaamka loo dejiyo iyo nidaamka uu u shaqeeyo drip irrigation oo ciidaha kala duwan ay biyaha u qaataan. video kusoo qaadan doonaa insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto. drip irrigation Soomaali markaan ku raadiyay Google Translate aan ka fiiriyay waxaan ku arkay waraab faleebo. marka erey bixinta waa ku liidanaa Soomaali haddaan nahay, laakiin drip irrigation sida aad magaca ka dareemaysid waa biyihii oo dhibic loo siinayo geedkii. haddii aad English ku baaraysid waxaa kaloo loo yaqaanaa trickle irrigation. si tartiib ah ayay biyuhu ugu dhibcayaan ciidda, laakiin mararka qaar waa la xoojin karaa iyadoo ku xiran tahay ciidda isticmaalaysid. badanaa biyaha ciidda lagu sii deynayo waxay u dhaxaysaa 2 litir oo biyo ah halkii saac ilaa 20 litir saacadii ayay gaaraysaa. marka intaas ay u dhaxaysaa. mararka qaarna biyo badan lagu sii deeyaa, mararka qaarna biyo yar. marka wuxuu u shaqeeyaa plastic ama mararka qaar PVC pipe ayaa waxa la samaynayaa duleel yar laga samaynayaa. duleelkaas ayaa waxa la gelinayaa waxa loogu waco emitters ama drippers ayaa la gelinayaa. saas ayay biyo kusoo dhibcayaan. meesha ay biyuhu ku dhibcayaan waa inuu u dhawaataa geedka salkiisa oo faa'iidada drip irrigation taas ayaa ka mid ah. sidaa darteed qayb ka mid ah ciidda kaliya ayaa qoyaysa ee maahan ciidii oo dhan lama qoynayo. taas waxay ku duwaysaa nidaamyada kale sida service irrigation iyo sprinkler irrigation oo iyagu qoynaya qayb weyn oo ka mid ah ciidda ilaa xitaa qaybta hoose oo fog oo ciidda si fiican u gaaraya mararka qaar oo biyaha ay gaarayaan oo nafaqadii ciidda ku jirtay mararka qaar ay saas hoos ku aadayso. marka maadaama qaybta kore oo u dhow ciidda kaliya ay drip irrigation ku qoynayo waa in lagu celceliyaa waraabka. sida caadiga ah maalin kasta ayaa la waraabiyaa. geedaha qaar 3 maalin ayaa la waraabiyaa. inkastoo taas ay ku xiran tahay nooca ay tahay ciiddu, dalaga aad abuurtay iyo cimilada jirta ay ku xiran tahay taas. sidoo kale ogow maadaama geedku uu u baranayo in biyaha meel dhow laga siiyo oo ilaa biyihii tartiib u sii deysa qaybta kore oo ciidda ayaa siisay, xididku badanaa wuxuu ku koriyaa qaybta kore ee ciidda markaas oo meel fog ma aadayo. marka haddii dhibaato ay timaado oo drip irrigation-kii uu halaabo hadhow dalagii ma uu lahaan xidid fog oo ciidda hoose jira. marka waxaa dhacaysa in dalagii saameyn weyn iyo dhibaato weyn ay u keento. ku celceliskaas biyaha ee drip irrigation-ka waxyaabaha marka uu uga fiican yahay biyaha daadka ah oo loogu shubayo beerta waxaa ka mid ah, kulli qaar kale gadaal ayaan ka sheegi doonaaye, in geedihii ay helayaan qoyaan joogto ah oo aan kala go'ayn, welibana aan aad u badnayn laakiin geedkii ku filan. marka geedaha ku habboon drip irrigation wuxuu aad ugu fiican yahay geedaha la yiraahdo row crops ama geedaha safka la geliyo oo markii la abuurayo safka la geliyo. qudaarta noocyadeeda kala duwan ayuu ku fiican yahay, xitaa kuwa geedaha ah. geed kasta markaas 1 duleel ama 2 duleel ayaa lagu aadinayaa hadba sida uu yahay nidaamku, hadduu geed weyn yahay iyo hadduu geedaha yarka uu yahay. laakiin sida caadiga ah geedaha wax soo saarka qiimaha leh oo qaaliga jooga kaliya ayaa loo isticmaalaa.
sida ansalaatada, yaanyada. Inkastoo aad ku arkaysid meelaha qaar iyada oo galleyda oo kale loo isticmaalayo, laakiin hadda xilliga aan joogno Soomaaliya oo kale qarashka uu u baahan yahay haddii galley oo kale lagu isticmaalo qarashkaas ku baxay waa adagtahay inay kasoo noqoto. Marka waa in loo isticmaalaa geedaha qiimaha badan jooga sida yaanyada Simzanta oo kale camal oo xilli fiicanna kuu ooleysa qiimo fiicanna kuu goynaysa, geedahaas kale loo isticmaalaa si qarashkii aad gelisay kaaga soo noqdo. Dalcadaha ku habboon haddaan fiirino, dhulka kala foorara oo meelna ay hooseyso meelna ay sarreyso waa loo isticmaali karaa haddii biyuhu awoodda ay leeyihiin ay ku geynayaan meeshaas. Laakiin waa qasab in la sameeyo ciidda dhinaca ay u foorarto in aan la dhigin tubooyinkii dhinac la raacsiiyo, contour line-ka dhinac in la raacsiiyo ayaa muhiim ah si aysan u dhicin in meeshii foorarka ahayd oo biyuhu aadka u foorareen aysan biyo saa'ida ku daadan, meeshii xoogaa yara sineenna biyo yar aysan ku daadan. Haddaan fiirino ciidaha ku habboon, drip irrigation wuxuu ku habboon yahay ciidaha intooda badan waa loo isticmaali karaa. Ciiddu haddii ay laakiin kaley tahay ama dhoobey ay tahay, waa biyaha in tartiib loo siiyaa si aysan biyuhu korka u fariisan iyo in aysan daadan darteed, oo aada ka dhigin biyihii daadka ahaayoo kale camal oo beeraha lagu sii deynayo kale oo inaada ka dhigin oo tartiib aa ugu sii daysaa haddii ciiddu dhoobey tahay. laakiin ciiddu haddii ay tahay bacaad duleel ka yara weyn ayaa loo samaynayaa kan dhoobeyda si ay biyihii dhinacyada u aadaan oo aysan hoos u aadin. Gadaal ayaan kaa tusi doonaa labada ciidood isku barbardhig ku saabsan insha Allah. Biyaha waraabka ee ku habboon, dhibaatada ugu weyn ee drip irrigationka lagala kulmayo waa dulduleelyada, maadaama ay yaryar yihiin way isxirayaan haddii biyo aan nadiif ahayn loo isticmaalo. Dulduleelkii inuu ku yar yahaa rabtaa sababtoo biyo badan inuu kasoo daaya ma rabtid, laakiin dhibaatada ku haysataa waxa weeye in ay qashinku uu xirayo dhagaxaanta is aruursatay oo yaryar, waxaa loo yaqaano algae, kiimikooyinka kala duwan sida is aruursiga calciumka iyo ironka, waxyaabahaasoo dhan dulduleelyada yarkaa waa kaa xiri karaan. Marka biyaha haddii aysan nadiif ahayn waxaad ku qasban tahay inaad haysatid filtaro aad ku reebto dhibaatooyinkaas oo dhan. Xitaa haddii biyuhu nadiif yihiin waa u baahan tahay qaar ka mid ah filtaro, laakiin xitaa haddii aad filter haysato mararka qaar waxaad u baahan tahay inaad samaysid wax la yidhaahdo flashing ama dhaqis. Systemka aad dhaqaysid dhinacyada inta ka furtid oo aad u ogolaanaysid inay biyihii xoog uga baxaan si qashinkii iyo waxyaabihii ku jiray ay uga qaato oo uga saarto. laakiin meesha uu drip irrigation ku fiican yahay waa in ciidda iyo biyaha cusbada leh oo waddankeena meelaha qaar noqon kara ama ayba tahayba in ay ku fiican tahay drip irrigation in loo isticmaalo haddii labadaas ciladood ay jirto. Gadaal ayaan ka sheegi doonaa insha Allah sababta. Sidoo kale nidaamkan biyo badan ayuu ku dhaqaaleynayaa, waxayna u fiican tahay waddankeena oo aan ognahay in biyuhu ay yar yihiin oo aan u baahannahay biyihii yarkaa ilaahayna siiyey inaan dhaqaalaysano oo sida ugu fiican aan uga faa'iideysan karno. Marka waa maxay nidaamka iyo qalabka uu u baahan yahay drip irrigation? Sidaan hore u sheegay, qalab kala duwan iyo nidaam habaysan oo aqoon ku salaysan ayaad u baahan tahay si drip irrigation loo dhiso. Laakiin haddii la dhisayo mid beer yar loo isticmaalayo waa laga dhigi karaa mid sahlan oo biyuhuna nadiif yihiin weliba. Insha Allah videogaas aan iri waan samayn doonaa ayaan uga hadlaynaa midkaas yarka oo beeraha yarka loo isticmaalayo si loo dhisi lahaa insha Allah. Sawirka haddii aad fiirisid drip irrigation beeraha waaweyn loo isticmaalayo qalab aad u badan ayuu u baahan yahay iyo habeyn badan. kulli dhammaan ma sharaxayno laakiin qaar ayaan soo qaadanaynaa. Halkan waa meeshii biyuhu ka imaanayeen oo ceel ah, laakiin way noqon kartaa baraag inaad biyaha kasoo jiidatid webi ama meelo kaleba. Bamkii biyaha soo qaadiyey ayaa ku xiran ceelka korkiisa oo biyihii wuxuu samaynayaa pressure ayuu siinayaa ilaa pressure aad u baahan tahay. Dhul fogaa laga yaabaa inaad biyihii gaarsiisid. Marka pressure tubo kasta waxay leedahay pressure loogu talagalay oo aan la dhaafsiin oo ku fiican. Kan waxaa la yidhahdaa sand separator oo wuxuu reebayaa ciiddii ceelka ka soo baxday ayuu reebayaa oo qaybta hoose ayuu ku qabanayaa midba midkuu ka weyn yahay ayay ku xiran tahay. Markaas hadhow ciiddii markay hoos degto waa in la furaa isaga ceelku markuu densan yahay si ciiddii looga soo saaro meesha. Kabacdi biyihii waxay tegayaan sand filterkaas ayaa wuxuu samaynayaa qashinkii kale, ciid ayaa ku dhex jirta, ciiddaas ayaa si dabiiciyana waxay u reebaysaa qashimadii iyo kiimikooyinkii qaarkood ayay ciidda ku dhex reebaysaa. Kabacdi taas markay soo dhaafto ayay waxay u imaanaysaa screen filterka midka la yiraahdo. Screen filterkaas ayaa wixii labadaas soo dhaafay ay reebi waayeen asna sii reebaya. Kabacdi waxay usoo gudbaysaa waxa la yiraahdo mainline kan ayaa wuxuu usoo gudbinayaa sub mainline. Marka sidaa ka aragtid sawirka way kala weyn yihiin oo si pressure ay u yeeshaan biyihii waa in tubada kale ay ka yartahay, markaas ayuu pressure fiican dhismaya. Marka mainline-ku uu ka weyn yahay submailine-kuna wuxuu ka weyn yahay kuwan la yiraahdo lateralska oo dhinacyada la dhigayo ayuu ka weyn yahay. Marka sida aragtid ayaga dhan waxay leeyihiin meel ay ku dhamaadaan oo la yiraahdo flash valve oo hadhow valve kaskaas waxa laga soo bixinayaa markii
ayaan systemka uu shaqeeyo qashin uu galo kuwa soo dhaafo saddexdaas meelood soo dhaafo ayaa la furayaa si qashinka oo dhan hal mar looga saaro intii soo gudubtay haddii kale emitterskii oo halkaan ah oo dhibicda siinayay ayaa xirmaya nidaamka uu u shaqeeyo drip irrigation haddaan fiirino drip irrigation marka la samaynayo badanaa si joogto ayaa loo dhigaa oo tubooyinka mainlineka iyo submainlineka meeshooda ayaa la dhigaa kuwa kalena korka ayaa la saaraa mararka qaar xitaa iyaka waa la duugaa laakiin waa wax joogto ah ee wax markasta la baabi'iyo maahan inta badan xitaa meelaha qaar kuwa yararkaa oo geedka ku dhibcinaya hoos ayaa lagu duugaa si beerta loo falo hadhowna xididka ayaa gudbaya oo meeshii tegaya oo biyihii dhibicda siinaya meesha ugu tegaya marka laakiin nidaamkaas waa hawl badan iyo engineering fiican ayuu u baahan yahay nidaamkaas marka sidee dhulka u qoyaa drip irrigation waxay uga duwan tahay surface iyo sprinkler irrigation waa inay qoyso wax yar oo ciidda ka mid ah xitaa mararka qaar 30% kaliya ayay qoysaa inta kuwaas ay qooyaan oo kale ay qoysaa oo 70% kuwaasa ka biyo isticmaal badan laakiin haddii drip irrigation aad isticmaalayso beertii dhan uu qooyo ma ahan drip irrigation markaas faa'iidadiisa drip irrigation meesha waa ka baxda laakiin drip irrigation markuu biyuhu ku dhibcinayo ciiduhu isku si uma dhaqmaan marka qaabkay noqdaan ciidaha kala duwan ee ciidda waa muhiim inaad ogaatid sababtoo taas waxay kuu sahlaysaa sidaad u maamuli lahayd ciidaha kala duwan tusaale ahaan fiiri sida ay u samaynayso ciidda dhoobeyda ah iyo midda bacaadka ah waa kala duwan yihiin waa muhiim marka in duleelka aad u samaynaysid uu ku habboon yahay nooca ciiddaada sawirkan wuxuu muujinayaa haddii aad duleel weyn u samaysid ciidda bacaadka ah iyo haddii aad u samaysid duleel yar aad u samaysid waxa biyihii ku dhacaya iyo ciiddii sida aad ka aragtid sawirka ciiddu markay tahay bacaad waxaa loo sameeyaa duleel yaro weyn sababta ugu samaynaysidna waxa weeye waxaad rabtaa biyihii inay dhinacyada si dhaqsa ku aadaan kabacdina iska xirtid laakiin haddii aad dhibic aad u yar haddaa u samaysid waxaa dhacaysa inaad noqoto biyihii ay hoos toos u aadaan oo ujeedaa water zone low discharge biyaha yar markii loo sii daayo saana dhacaysa laakiin markaad biyaha si yaro xoog la u sii daysid waxaa dhacaysa inay dhinacyada gaarto oo ay xididkii qayb fog ay qabato marka ciidda marka hadday tahay bacaad godka waa u weyneynaysaa duleelka oo duleelka hadduu isku mid yahay waxaa samaynaysaa biyaha awoodooda badinaysaa si biyo badan usoo baxaan laakiin ciiddu hadday tahay dhoobey biyaha waa yaraynaysaa waa qafiifinaysaa siday usoo baxayaan sababtoo ah markii aadan biyaha qafiifin ciidda dhoobeyda waa naqaanaa biyo markaad ku dhibcisid inay wax badan korka joogayaan oo si tartiiba ay hoos ugu gudbiyaan marka waxaa dhacaysa haddiid biyo badan kusii daysid inay biyihii dhinacyada ka daataan oo ay socdaan oo dhul badan ay qooyaan ileen hore hoos kama aadiyaan adigana ujeedadaad waxa weeye xididka geedka hoostiisa inay biyihii hoos kuu aadaan ee ma rabtid inay dhinacyadaas fog ay aadaan marka sababtaas darteed biyaha haddii duleel aad samaynaysid ama aad qafiifi biyaha qaabkay usoo baxayan waa inaad qafiifisaa markaa ciidda dhoobeyda isticmaalaysid labadaas nidaam ayay kula duwan yihiin oo ugu muhiimsan labada ciidood haddii kolley ciiddu ay tahay ciid u dhaxaysa labadan ciidood ilaa hadda waxaan ka hadalnay ciidda bacaadka iyo ciidda dhoobeyda oo laba geesoo kala fog jooga haddii laakiin ciiddu ay tahay ciid u dhaxaysa labadooda biyahaas aad u siinaysidna u dhaxaysiinaysa labadooda si kastaba ahaatee inkastoo aad qayb ka tirsan xididka biyaha oo geedka salkiisa aad dhigayso waa muhiim in geedka markasta la siiyo biyo ku habboon mararka qaar dadku waxay u malaynayaan drip irrigation haddii la isticmaalo inay biyo badan u dhaqaaloobayaan oo geedkuusa biyo badan aan la siinayn uusan u baahnayn laakiin taas waa qalad geedku biyihii u baahnaa nidaam kasta ha la isticmaalo ayuu u baahan yahay oo isticmaalaya marka markasta waxaa ku qasban tahay inaad siisid biyihii ku habboonaa ooda wax ka badan aada siin biyaha marka kuu dhaqaaloobaya xaggee ka imaanaya biyaha kuu dhaqaaloobaya markaad isticmaalaysid drip irrigation waxay ka imaanayaan biyihii hoos kaa aadayey oo ciid fog oo hoose aadayey waa kuu baqdeen oo meesha ka baxeen biyihii daadka noqonaya oo beerta ka baxayay ama bannaanka daadsanaa ayakana meesha waa ka baxeen ama geedka xididkiisii ka fogaanayay waa ka baxeen meesha kuwii qorraxdu qaadaysay markii ay bannaanka fadhiyaanna ayakana meesha waa ka baxeen marka biyahaas aad badbaadisay iyo inta kuu badbaada waxay ku xiran tahay qalabka aad haysatid siduu u fiican yahay oo aan biyo khasaaraa sii daynayn oo aan dulduleelo badan lahayn iyo adiga beerta qaabka u maamushid ay ku xiran tahay marka waa inaga hore kuu niri in drip irrigation uu ku fiican yahay ciidda liidata ama ay ku badan tahay cusbada ama biyuhu ay leeyihiin cusbo ciidahaas liidata ayuu ku fiican yahay sababtaasna laba qaybood ayaa loo kala qaadaya midda koowaad maadaama aadan biyo aad u fara badan aadan siinayn sida sprinklerka iyo service irrigationka aadan biyo badan u siinayn cusbo badan ciidda korkeeda ma fariisanayso midda labaadna drip irrigation wuxuu keenayaa waxaa la yidhahdo localized leaching oo micnaheedu yahay cusbadii ayuu xididka hoostiisa ka qaadaya oo ciidda hoose oo fog geynaya waad xasuusataa sawirkan haddii aad biyaha ciidda qaabkan loo waraabiyo ciidda cusbada ay leedahay hoos ayay aadaysaa waxay keenaysaa in cusbadii hoos aado oo ciidda xididkeeda agteeda ay ka qaado hoos geyso taasna marka faa'iido ayay kuu tahay haddii walwalkaagu uu yahay cusbada markaasoo kale
haddii walwalkaagu uu yahay cusbadii waxaad samaynaysaa biyihii inaad xoogaa yara xoog ugu sii dayso meesha yarta ma ahan inaad dhulka dhan buuxinaysid meesha yarta ayaa xoogaa biyo xoog ugu sii daynaysaa ama aad ku celcelinaysaa taas marka si joogta haddaad u samayso cusbadii hoos ayay kaa aadaysaa oo localized leachkaas ayaa ku dhacaya wax soo saarkiina insha allah way kordhinaysaa kor ayay u qaadaysaa markii cusbadii dhibkeeda uu meesha ka baxo waxaan filayaa inaad fahantay taas gabagabadii on drip irrigation waa un mid ka mid ah noocyada beeraha lagu waraabiyo waxyaabaha qaar wuu uga fiican yahay nidaamyada kale laakiin isaguna dhibkiisa ayuu leeyahay haba ugu daraato aqoon inuu u baahan yahay iyo maamulid fiican qarashka aad ku habaynayso oo aad ku diyaarinaysana iyo alaabta halaabaysa uu u baahan yahana aaday u badan tahay marka dhibaatadiisu waa taas laakiin shaki kuma jiro inuu u fiican yahay meelaha ciiddu cusbada leedahay ama biyuhu cusbada yihiin meelaha ciiddu ay bacaadka tahay oon biyaha cisho karin dhulka kala sarreeya waa ku fiican yahay sidoo kale aad ayuu u fiican yahay drip irrigation haddii aad abuuraysid dalag qiimo fiican aad ku helaysid una baahan biyo joogto ah oo biyuhu ay yihiin qaali ood rabto biyihii inaad dhaqaalaysid khudaartiina aad ogtahay inaad qiimo fiican ku helaysid shaqaaluhuna uu yahay qaali markaasna aad ayuu u fiican yahay drip irrigation in la isticmaalo automaticna waa laga dhigi karaa weliba systemkan si aad u sahlan ayaa looga dhigi karaa wuxuu u baahan yahay dad aqoonti leh oo kaliya oo markaas uma baahna dad badan in xataa beer weyn hadday tahay dad badan inay ka shaqeeyaan uma baahna kulli adaa lagaa rabaa inaad isku qiimaysid noocyada kala duwan oo beeraha loo waraabiyo adoo fiirinaya xaaladda iyo dhaqaalaha iyo qarashka iyo shaqaalaha u baahan tahay iyo biyaha khasaaraya haddii aad aragto qarashkaas inuu badan yahay waa aragtay beeraleydeenna qaar badan waxay isticmaalaan badeelkan oo biyaha ay ku kala celiyaan oo beerta saas ugu sii daayaan marka kii un markaas xaaladda jirta ayaad un kulley dooro doontaa haddii ilaaha yiraahdo waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen asalaamu calaykum waraxmatullah